السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan hore usii galaynaa haddii la yidhaahdo sectionkeena koowaad ee kooraska research methodology process level 1. haddaba sectionkan haddii la yidhaahdo waxaan ku kafar garayn doonaa waxa loo yaqaan introductionka kooraskan research methodology processka. haddaba ashirka koowaad waxaan ku kafar garayn doonaa ama kaga hadlaynaa waa maxay reasonska keeni kara in cilmi baaris la sameeyo. Okay, maxay yihiin reasonadaasiiti? reasonada marka aad ay u badan yihiin, laakiin wax yar oo kamid ah ayaan insha allahu tacaala ka bidhaaminayaa. horta sababta koowaad ee cilmi baaris la sameeyo keeni karto waxaan leenahay waa to understand a field you are studying or working in. waa inaad mataqaanaa doonayso inaad fahan dheeriya ka hesho goob aad markaa wax ka baranayso ama markaa goobta shaqadaada ah oo aad ka shaqaynayso. Okay, sida caadiga anaga markii aan maaragtahay ku jirno nolosheena caadiga ama waxbarashada ama shaqada problemku dee hareerahaynu yaala ama arrimaha u baahan in wax laga qoro. So markaa adigu muu baahnidba inaad problem badan oo markaa aad ka fikirto intee topic ka keensanaya, intee baa markaasi areadii wax ka qoraa, meelaan adoon aadin fildigaaga waxbarashada ama goobtaada waxbarashada ama goobtaada shaqada waxaa arki doontaa problem halkaas diyaar ku ah. kaba soo qabo waxaad ka shaqaysaa jaamacad oo kale, macallinaad tahay ama maamul ayaa tahay ama faculty dean aad tahay for example. waxaa laga yaabaa for example inaad aragtaa ama aad mar walba la kulanto in kaba soo qabo ardada jaamacadda xiisada koowaad oo kale always ay soo daahayaan. So marka waxaa laga yaabaa problemkaas hadda cid walbo hadda daawanayso muuqaalka waxaan u malaynayaa inay arday ha noqoto ama macallin ha noqoto problemkaas inay in badan arkaan. Okay, haddaba marka goobta ka shaqaynaysa ayuu dhibkaasi ka jiraa. dhinaca ka tahay kuliyadii kale waa caadi ama markaa okay wayba kaa roon yihiin adii, laakiin survival inaad noqon doonin ayaa dareemaysa haddii xaaladdu saa kusii socoto. ardayda 50 kamid ah ama 50% kamid ah waa late xiisada koowaad khaasatan. haddaba marka waxaa ku fikirtay problemkaas marka ama arrintaas in aad markaa waxa kalifayo aad fahan ka heshid oo aad sababaha raadiso keenayo ardada inay leed noqdaan xiisada koowaad. Okay, haddaba marka waxaa laga yaabaa inaad ku fikirto okay what are the factors marka oo contribution ku sameynaya arrintan ka qayb qaadanaya maxay yihiin. waa baaritaan samaynaysaa den ardadaas wareyso doontaa ama markaa quantitative aan u samay ama qualitative aan u samay marka problemka aragnaa si fiican u ogaa doontaa midka ay ku habboon tahay. so waxaa soo saari doontaa in markaa problemyadu waxa ay yihiin 1 2 3 patterns ahaan, otherwise problemyo ku muuqdo ayaad baari doontaa oo markaa keenayo arrintaas. sida kaba soo qabo jaam inuu magaalada ka jiro, inaysan ardadu habeenkii hore usii hoyanin ama aysan usii seexanin, inay markaa meelo fogfog ka imaadaan ay u baahnaan lahaayeen gawaari soo wada qaado soo marto maadaama taasi waqtiga inay ilaalinaysa laga yaabo, inaysan awareness ku ahaynba in macallimiinta qaar oo mataqaanaa senior aysan xiisadaha koowaad ku jirin ama aan lala xisaabtamin. waxaa intaasoo case oo kala duwan waxaa laga yaabaa inay arrintan keeni karaan. so marka waxaa tirahday arrintaasaan baaraya. so marka waa reason keenay inaad cilmi baaris samayso arrintaas ugu. so marka so good. haddaad arday tahayna sidoo kale arrimo sidaasoo kale kugu gadaaman ayaa jira oo mar walba aad arki kartid. pointiga labaad oo keeni karo halkan hadaad eegto waxaa arkaysaa to explain and find answers in a relation to what you perceive. perceptionkan ama perceiveka waxa loo yaqaano waa wax markaa adiga kaa dhalacsiisan. haddaba marka waxaa rabtaa inaad explanation area ama answers u heshid wax adiga kaa dhex guuxaya. kaba soo qabo waxaa ku fikirtayba okay as business ahaan waxaa kaa dhex guuxayso haddaan mataqaanaa iraahdo for example area of business market survey oo kale kaba soo qaba ayaa rabtaa inaad samayso. hadda for example dhanka macallimiinta haddaan aadna maadaama waxbarasho la ku jirno, macallimiinta waxaa laga yaabaa in badan inaad aragtid haddii ay isticmaalaan kaba soo qabo markii galaaska galaya ila shaqa adagaa la galaaye garamaan oo kale hadday wataan waxaa arkaysaa shaatiyaashooda oo kale for example inay kilkilaha oo kale ay ka qoyayaan. so marka perception waxaa kuu muuqda ah haddii aad keento fanaanado for example oo mataqaanaa kilkilaha kule wax oo markaa dhididka seef garaynayo oo markaa sida xafaayad oo kale for example dhididka uu ku dhacayo hadhowtana qofku markuu ka baxo deen sawir u maareeyo, laakiin ardada hortooda shaqadiisa intuu ku jiro in uu nadiif ahaan karo labiskiisa u hagaagsanaan karo. den marka haddaad alaabtaas dalabtay keento ama fanaanadaha noocaasi ah waxaa perceptionkaadu noqday then these things waxay ahaan doonaan so good way soconayaan way iibsamayaan. so marka please
ha samaynin in aad iska dalabto sida Soomaalida oo kale for example business waa la iska galaa waxa la leeyahay okay haduu guul dareystana ee waa qadar siyaas qadarta ma diidani laakiin little bit marka horeba dii lama qorsheyn lagama taxadirin evaluation ama marka mataqaanahay study waxa la yiraahdo feasibility study looma sameyn soo marka feasibility study sa u sameeyso waxa u baahan tahay waxaan ka dhex buuxay ee ah hadda arintaas bilowdo inay fantastic noqon doonto waxa sameynaysaa you try su'aalaad ka diyaarinaysaa dadna dadkii baa weydiinaysaa macallimiinta ay target ku aad ka iibin lahayd meeqaa bay iibsan lahayd for example arintaas ma soo dhaweyn lahayd qaarkood waxa laga yaabaa inay marka problem kale ku furaan si kale wax ku tusaanba ama marka arinta jawaabooda ay wax kale kaaga dhex baxaan hadii kalena confirm ayaa ku soo baxdo if ay confirm ku soo baxdo just go dalbo waxba shakinin businesska uu ku soo caman doonaa hadii la yiraahdo laakiin jacaylkaaga dad askaga dalabto then hadhowtu waxa weeyaan guul darro sugo filo aan dheeray waliba okay boontiga xiga wuxuu noqon doonaa oo keeni karin cilmi baaris sameeyso kama soo qabo inaad critical examine assertive inaad doonayso ama marka aad rabto inaad wax u baarto si xeeladaysan oo marka arrinteedu rabto noqotay whatever tam waa open boontiga xigo waxaan leenahay to make judges habdhaqan meel ka jira ama marka ayaa waxa rabtaa in isbedel ku soo dabaasho hadaba marka si aad isbedelkaas u sameeyso ayaa keeni karto in cilmi baaris sameeyso haddaan angal kale ka fiirinana xagga cilmi baarista for example contribution oo kale xagiisa isbedel si aad adiga nafsadaada u sameysana waan oran karnaa okay oo marka nafsad ahaantaada gareedki aad joogtay ee laga yaabo freshman inaad ku ahayd cilmi baarista oo marka arrimaha la xiriiro then marka inaad doonayso inaad marka step qaado forward markaas oo kale nafsadaada si aad to make judge oo cilmi baare wadada ku noqon lahayd step u sii qaadana waan oran karnaa laakiin sida caadiga sababta cilmi baaris loo sameeyo waa problem ama arrin meel ka jirto si aad isbedel ugu soo dabaasho okay sida kaba soo qabo isla topic-aada ay dib ugu noqdo in aad rabto in aad markaas soo wareejiso ama marka kaba soo qabo waxa aragnaa markii la joogo thesis-ka kale for example markii la difaacanayo markii la qorayo ardaydu in badan inaysan waqti badan gelinin energy gelinin si sax aysan u sameeynin tan kaba soo qabo waxaan isku dayayaa hab dhaqankan inaan wax badan ka bedelo soo cilmi baaris inaan sameeyo ku qasbanahay then ugu dambeystii cilmi baaris waxa laga yaabaa inay soo baxdo macallimiinta ayaga markaas ay serious ahaynba oo subu fayr garanaya ardada waxa laga yaabaa lacagta la siina inaysan ku filnayn sidaas darteed ay saayiguna maarta iskaga fududeeyaan waxa laga yaabaa inay ku soo baxdo in macallimiinta qaarkood ay ardada ayagu u qoraan buugaagta macnaha lacagna ka qaadan hore adigina lacagta kala ka qaadayaan sababtoo adiga lacag fiican u ogolid macnaheedu jaamacadii aad tahay markaas mugta academic maarta qaybta ahayd oo marka maamulka ay daata mataqaanahay aan tadgarina inaad tahay adiga okay qaybta ugu dambayso to find the answers to a theoretical questions sida caadiga nolosheena badankeedba wax theoretical questions ama theoretical wax ku base gareysan ay markaa tahay dhamaanteed hadaba marka meesha waxa rabtaa ama badankeedba in aad eegto waxyaabaha theory-ga la aaminsan yahay reality-gooda inaad hubiso okay tan oo kale waxa laga yaabaa inay xogaa long way kula aado laakiin it's okay wax walba theoretically ama marka hypothesis ahaan la aaminsan yahay then just cilmi baaris sameey then waxa ku soo baxayso inay sidaas ay aaminsan dadku ay sax tahay otherwise in aysan ahayn soo marka waxaan filayaa intaas inay clear tahay